والنهاردة هنشوف أول رد فعل التعليق من هنا بنت شيرين عبد الوهاب. العصابة حسام حبيب وسارة الطباخ. أنا أختي بتضيع، أختي بتنهار. أستاذ حسام حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال meel kastoo aad adduunka ka joogtaan. halkan waa baraha Facebook iyo YouTube kan ku leenahay ee Burhan Janaal. inta uu socdo barnaamijkeenan waxaad ku maqli doontaan dhowr qodob oo kala ah xaaladii iyo waliba xogtii ugu dambeysay gabadhii fanaanada ahayd ee u dhalatay dalka Masar ee maalmahan ku jirtay xaalad aad iyo aad halis u ah. dhaqaatiirta ama cisbitaalka ay ku jirtay ayaa waraaq ka soo baxday waxa lagu xusay in ay ku jirto marxaladii saddexaad ee heerka qofka jirkiisa darooga siiyo, taasi oo micnaheeda ah in uu dhimasho anytime ama xilli kasta qarka uu u saaran yahay, inkastoo oo waqtiga iyo waliba qofka saacadiisana uu sadhaafeen allana uu hayo. waxaan idin hayaa xogtii ugu dambeysay iyo waliba xaalka hadda meesha uu marayo. haddaba waxaa jira inta badan dadka ka hadlay barnaamijkeeda gabadhan waxyaabo badan oo ay idinka qariyeen ayaan halkan idinkugu soo bandhigi doonaa. fadlan daawade haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto baraheena YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga ee Burhan Janaal. kuna soo dhawaada xogtii ama wararkii ugu dambeeyay ee gabadhaas fanaanada ah ee uu dhibaateeyay ninka qabi jiray. anigu waa Burhan Cali, mar kale halkan waa Burhan Janaal. ugu horeyn daawade waxaan ku bilaabeynaa magaceeda oo saddexaan. gabadhan fanaanada ah waxa lagu magacaabaa Shireen Sayid Maxamed Cabdilwahaab. waxa ay dhalatay October 8 1980 iyadoo da'deedana xilligan ay tahay 42 sano. waxa ay ku dhalatay dalka ay ka soo jeedo ee Masar caasimadiisa Qaahiro. Shireen yaraanteedii waxa ay ahayd gabar aad iyo aad u xiiseysa dhanka fanka ama muusiga. waxaa jirtay markii dugsiga sare ay dhiganaysay in xiisadaha halkaasi ka baxa maaddo la oran jiray music art ay aad iyo aad ugu hanqal taagi jirtay, inkastoo ugu dambeynna haatan ay noqotay gabar fanaanad ah oo dalalka caalamka oo idil aad looga yaqaano, haddii ay noqoto Yurubta iyo waliba Amerika, sidoo kale dhammaan qaaradda Aasiya ama Middle East iyo waliba wadamada Afrikaanta ah ee Soomaaliya ay ku jirto ee daneeya heesaha Carabiga ah. Shireen aabaheed waxa uu ahaa nin sayid ah oo aad iyo aadna looga xushmeeyo dalka Masar. ayadoo waa Islaam ay ka dhaxgalay horta marka hore, laakiin famil ahaan waxa ay ka soo jeedaa hooyo iyo aabe Islaam ah oo diinta ku adag. waxaa jirtay inta aysan fanka soo gelin in aabaheed uu cadaadis ku saaray in waxaan lagu naartagayo ayna iska dhaafto, inkastoo ay ka weyneed riyada iyo waliba mabda'a ay ka aaminsaneed fanka. ogow Masarna qofka waxa uu rabo ayuu noqon karaa. xitaa dal ahaan Masar waxa ay leeyihiin dad Christian ah ama gaala ah wadankana u dhashay, inkastoo aysan dawladda ku dhex lahayn awood iyo saameyn aad u fara badan. gabadhan lagu magacaabo Shireen waxa ay isguursadeen 3 nin, laakiin mid ka mid ah oo lagu magacaabo Maxamed Mustafa waxa ay u dhashay 2 gabdhood ee haatan ay haysato. xilli kasta ama wareysi walbana ay ka sheegto, inkastoo warbaahinada qaar ay qorayaan in ilmaheeda ay 5 yihiin. ma aqaan saddexda kale halka ay ka timid, laakiin waxa ay ku andacoonayaan in ay iska soo riday. Maxamed Mustafa waxa ay u dhashay 2 gabdhood ee lagu kala magacaabo Henna Mustafa iyo waliba Maryan Mustafa. waxa ay isguursadeen sanadkii 2005 waxa ayna kala tageen 2012. 5 sano ayayna isqabeen. haddaba waa inii soo sheegay nolosheedii waxa ay guursatay 3 nin. 3duba waxa ay dhinacyo kala duwan uga jireen fanka. waxa ayna kala ahaayeen producer, laxamiistayaal iyo waliba fanaaniin. laakiin ninka saddexaad oo aan maanta sababay in aan ka hadalno gabadhan lagu magacaabo Shireen nolosheeda wax badan ayuu ka bedelay. waxa ay isguursadeen ninkan Abriil 2018 waxa ayna kala tageen 2021. haddaba waa kuma ninkan gabadha aad iyo aadka u bahdilay daraadiisna ku kalifay in nafsadeeda ay isku dayday dhowr jeer isdisho. ninkan ugu horeyn magaciisa oo saddexaan waa Hasham Eddin Hussein
kaamil xabiib, laakiin magaciisa waxa uu u soo gaabsaday sida tan hashaam xabiib. waxa uu dhashay 31 May 1980. da'diisu waa 42 sano. sidoo kale waxa uu ku dhashay dalka uu ka soo jeeday ee Masar, gaar ahaan caasimadiisa Qaahiro. labadooda da ahaan waa isku fac oo waxa ay wada dhasheen hal meelna ku wada dhasheen sanadkii 1980. kale isaguna waa fanaan, inkasta oo 2004 ilaa 2016 uu aad u kacsanaa, laakiin waxa uu mar kale sii qarxay marka ay isguursadeen gabadhan hadda oo dhulka uu ku jiiday ee lagu magacaabo Shareen. haddaba Shareen iyo Hashaam maxaa dhex maray? waa tana arrimaha xasaasiga ah ee labadooda aad iyo aad ka u dhex maray. waxa ay isguursadeen ninkan 2018. inta aysan isguursan ka hor waxa ay ahayd gabar fanaanad ah oo meelaha masraxiyada marka ay ka soo muuqato ku raaxaysan jirtay heesaheeda. inta ay isqabeen dhowr show oo ay qabatay ama bandhig faneedyo ay qabatay, waxa ka soo muuqday iyada oo oynaysa. dadku waxa ay u haysan jireen kaliya in ay u oynayso heesaheeda oo ahaa kuwa aad iyo aad jacayl xad dhaaf u ahaa. sidoo kale waxa jirtay inta aysan isguursan labadan ka hor gabadhan waxa ay ahayd gabar aad iyo aad u firfircoon. guurkeedii kadib Shareen waxa ay la soo baxday waji cusub oo dadkii saaxiibadeed ah ama fanaaniintii kale ee saaxiibada ahaayeen oo ay ka mid tahay Aliza ay u isticmaashay. marka ay bandhig fineedyada ku kulmaan, gabadhii ay waqtiga wada qaadan jireen dadka kale oo waxa la arkay markay barnaamijka dhameysato qofka kaliya dhahaysa hay ama salaam. wax kale hadal ah oo ma sii furi jirin. inkastoo gabadha fanaanada ah ee lagu magacaabo Aliza waraysi ay bixisay in ay ku sheegtay xalkeeda gabadhan wanaagsanayn, inkastoo markii dambe iyada laf ahaanteeda Shareen ay wax walba banaanka dhigtay kadib kala tagoodii ayada iyo ninkan qaa'inka ah. waxyaabaha mucjisada leh waxa ka mid ahaa in ninkan hantideedii oo dhan inuu saxiixday. sidoo kale maxkamad ay isla koreen bilooyin socotay ayaa dawladda Masar waxa ay go'aamisay in dhammaan hantida ay lahayd gabadhan ninkan ay siisay in looga soo cesho. waxa ka mid ahaa baabuurta, guryaha iyo waliba hantida kale ee lacagaha ah ee ku jirta bangiyada. ninkan lagu magacaabo Hashaam aabihiis ayaa mar cod sir ah ay ka duubtay gabar kale oo wariye ah oo ay markaasi saaxiibo ahaayeen, inkastoo ay barnaamijka dhanba ay ula saaxiibtay ay ahayd in ay ka wareysato siraha qarsoon ee Hashaam oo uu yahay aabihiis iyo waliba gabadha uu sadogda u yahay. waxaa jirtay cod ay soo bandhigtay gabadhaas oo adduunka oo dhan gariiriyay, fadeexa weynna ku noqday odayga. ayaa waxa uu ahaa sida tan: aniga wiilkayga naagtaas ma dhashada ah ee ka weyn waa ay khiyaantay, mana rabo in ay intaan kadib isla sii joogaan. ma u dhalayso. waxa uu u ag fadhiyo gurigeeda ayaan la yaabanahay, iyo waliba hadallo kale oo xasaasi ahaa. Shareen fadeexad weyn ayaa meeshaas uga soo dhacday, inkastoo iyada oo la wareysanayo barnaamijkana wax laga weydiiyay ay ku jawaabtay kaliya sodogay. wax yar oo ismaandhaafa ayaa galay. waxa ay ula jeeday micnihii de in uu meel soo fariistay isaga oo de waraysi ama ugu talagalay inuu cod baahiyo muusan yeelin. tusaale waxayba ku soo koobtay sheekada dhanba odayga waa la khiyaamay, gabadhaas baa khiyaantay, codkaana waa ay ka xaday. meeshaas ayay uga gudubtay. waxyaabaha mucjisada leh waxa ka mid ahaa horta dalalka carabta waxyaabo waxa ka jira aad iyo aad ceeb uga ah. tusaale haddii ninka ay gabar isguursadaan ee loogu waco heblaaye ninkeedii, ninkaas fadeexad markuu wadamada carabta joogo uma dhinna. waxa ay diidayaan in la dhaho Shareen ninkeedii. sababta ayaa ah in ninkan baabuurta, guriga u degnaa, biilka aabihiis iyo hooyadiis, lacagaha uu ku tunto, safarada uu galo iyo waliba wax walba oo ninkan familkiisa ay u baahdaan haddii ay noqotaba contency waxa lahayd Shareen. asaga mararka qaar oo la wareysto waxa jirtay baabuur qaali ah oo uu wadan jiray oo ka mid yahay gaarigan lagu magacaabo Porsche. gaarigaas waa gaari raaxo oo sporti ah, aadna u qaali ah. waxa uu dhigi jiray aniga ayaa gatay. waxyaabaha kale ee weyn waxa ka mid ahaa
in maxkamadii doodihii ay isdhaafsadeen ay ku jirtay in ninkan wax walba uu wato xitaa shaatiga hadda uu xiran yahay in ay tahay lacagtiisii ama dhididkiisii inkastoo waxaasi markii dambe ay noqdeen sheeko baraaley oo dhammaan guryihii baabuurtii wixii oo dhanba dib loogu soo celiyay ninkan oo lagu celiyay Shareen. intaas kadib maxaa dhacay waa tana sheekada adduunka oo dhan hal mar ay ku soo baraarugeen. dhowr maalin ka hor Hashaam waxa uu yimid guriga Shareen oo markaasi hooyadeed iyo gabdhaheeda ay wada joogaan. guriga marka uu soo gargaraacay ama uu soo galay isla markiiba waxa albaabka uga hor timid Shareen hooyadeed waxa ay ku tiri inta maxaa ka soo doontay doqon yaho orod guriga ii dhaaf. laakiin mid baan ninka iloobay ee hal daqiiqo isiya. waxaa jirtay horta ahaan aad iyo ay u weyn tahay Shareen mararka qaar waxa ay dhihi jirtay waxaan rabaa in ninkan micnihii aan hal cunig ugu yaraan taa aan u dhalo oo ilaa ay Mareykanka tagtay daawooyin bay soo qaadatay xitaa waxa ay isku dayday in ilmaha loo beero labadooda ninkan xoogaa laga soo qaado gabadhana xoogaa laga qaado sidaasna ilmo loogu beero inkastoo ay socon weysay. waxaa jirta dadka caafimaadka dhigtaa yaqaanee in ugxaan wax la dhaho ay jiraan oo waliba dumarka marka ay ahaan sii koraan ay sii yaraadaan. marka adiga isku dayo badan bay gashay daawooyin ay qaadatay dhowr sano ayay Mareykan u joogtay in daawooyinkaasi ay qaadato waa ay soo dhameysatay. markay soo dhameysatay daawooyinkii ninkan xoogaa sidii hore wajiga ayuu uga bedelay. waa marka aan idin leeyahay ninkan aabihiis waraysi ama ninkan aabihiis cod sir waxa ka qabanaysa gabar iyaduna wariye ah oo inta badan siraha qarsoon banaanka keenta. waa marka ay Shareen ka soo laabatay Mareykan marka codka aabihiis laga qabanayo uu leeyahay ninkan gabadheedu way ka weyn tahay inay waxna uma dhalayso wuxuu u ag fadhiyaa khalada waa ka fureynaa. aan u soo laabana marka hadda gurigi oo ay sheekadu taagneed. guriga marka uu soo galay hooyadii gabadha dhashay ayaa uga hortimid waxa ay ku tiri doqon yahow ilida iiga deg adigu meeshii waa la murmurmay. waxaa jirtay marka intuusan imaan ka hor 2 beri 3 beri oo ka horeysay in WhatsApp-ka ay ka jaatin garan jireen inkastoo waxaanoo dhan gadaal dambe uu ka sheegay Shareen wiil ay walaalo yihiin. adiga gabadhii Shareen ahayda ku timid buuqii aragtay oo war Hashaam see tahay meesha adiga la isku marxabeeyay habartii iyo gabdhaheedii way yaabeen. habartii wali waxay taagantaa go'aankeedii ahaa eeyaho guriga iiga bax. Shareen hal mar ayay waxa ay isbedeshayba ayadoo dhan oo xitaa gabdhaheedii way ay la yaabeen. hooyo waxay tiri ninkan guriga kama tagaayo ee adinka ayaa guriga ka baxayo. habartii warkii fajacayuu la noqday. gabdhihii iyo ayaydood gurigii ay ka wada baxeen. markii gurigii ka wada baxeen baa waxa dhacday in dhowr saacadood kadib ay is wada raaceen guri kale oo kamid ah guryaha private-ka ah ee la kireystay lagu tunto inay wada tageen. meeshaas waxaa jirtay in daroogo gaarsiisay heerkeeda saddexaad uu ku siiyay Hashaam gabadha fanaanada ah. marka isagu waxa uu rabay markii la baaray in hal mar uu nolosha dhaafiyo laakiin wax dambiyo uusan ku lahaan oo kaliya uu dhaho waan isla cabeynay teedii ayaa u timid anigaba waa cabaayay aniga wax ku talagal u sameeyay maaha inuu dhuu rabay. inkastoo hadda Instagram-kiisa qoraal uu soo dhigay oo hadda shaashada idinkaga muuqda markii la micneeyana noqonaya wax walba alla og camal u eg uu soo dhigay. adiga hooyadii markay sheekadii la yaabtay ayaa waxa ay wacday wiilkeedii oo ahaa Shareen walaalkeed. waxa ay ku tiri baliis walaasha ama gabadheeda ii soo badbaadi. adiga ninkii boolisku la xiriiray wiilkii Shareen la dhashay markii baaritaan kadib uu galay waxa uu ogaaday in gurigaas labadooda ay wada joogaan. gaariyo soo qaatay meeshii ugu yimid ninkiiba meesha isku aflagaadeeyeen. walaashiis buu gaariga ku soo ritay sidii cisbitaal ku keenay. adiga haddana sheekadii hal mar haddana waxyaabo kalaaba oo aan la filayn ayaa meesha ka dhacay. Shareentii waxay taagan tahayba walaalkay waa uu idilay si xooguna igu soo qaaday. adiga gabadhii marxaladeed aad u sii darnaatay cisbitaalkii kooma ayay gashay. taageerayaasheedii oo dhan walaalkeed markii uu waraysiga bixiyo uu yiri aniga walaashay waxba mid jirdilin laakiin wax walbo markaas aan u arkayay in nolosheeda aan ku badbaadiyo xitaa hadii la ii cadaabo ama xabsi daa'in la iga dhigo waa u sameynaya waana sameyn lahaaba. taageerayaasheedii oo dhan cisbitaalka banaankiisa yimid 3 beri oo kooma ayay ku jirtay. ugu dambeyn dhowr saacadood ka hor
ilaahay xaaladeedu uu soo toosiyey oo cisbitaalka waa laga saaray. gurigii shalay ay tiri iga bax hooyadeed, guriga waxaa ku soo dhaweeyay hooyadeed iyo gabdhaheedii. xaaladeedu hadda waa degan tahay, sidii hore way ka fiican tahay. isla markiiba maamada ama hooyada dhashay Shareen waxa ay dowladda Masar ka codsatay in gabadheeda xaqeeda loo soo dhiciyo, oo ninkaasna gabadha aad iyo aad u bahdilay uuna rabay in nolosheeda uu dhaafiyo. dowladda Masar iyadana go'aan ayay ka soo saartay, oo haddii aan idin micneeyo tusaale, qofka haddii wadanka uu ka joogo meel aad iyo aad u sareysa, marka dowladda Masar way hadashay, waxay tiri Shareen waa Masar, dadminis waxa waaye xaqeeda u soo dhicinaynaa, oo waliba qof caadiya ma aha gabadhan, astaamaha lagu garto dalka Masar xaqeedana u soo dhicinaynaa. fadlan anigu waa Burhaan Cali, adiga hadda i daawanaya waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad like saartid, micno weyn kuma dhisna, oo like tu lacag ma aha, laakiin aniga boos qaali ah ayay iga joogtaa. barnaamijkan waxaa gacan weyn ka geysatay Amaley iyo sidoo kale saaxiibkay Maxamed Saciid Saxaaf, aniguna waxaan ka ahaa soo saare. waxaan idinkaga tegayaa kulanti dambe oo xiiso leh. sama iyo salaama.